السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الأد يا أد بني إسلامي ملك استوديو على ذاك الشوكتان ما أنت برنامج كأنه هل كان كوا داعي إنه وانك بقى صاركتين وحاي تاي شنت مجالي أدونك وأمني قبضلني أما أدونك وقلنا بدأ في عنله مركا إنه يجنون كهل إن أمني مركا ويما ضو حدشة نبض ينرل صوبته مش هدانو أمني ترين حتى لو قول لدني هاي دواتوين بدن أياك ترى balse waxaynu soo qaadanaa 5 caasimadood oo adduunka ku kala yaala balse nabadda ugu horeeya adduunka marka la eego wadamada kale oo dhan hadaba hadaynu ku soo dhawaano barnaamijkeena intaynu barnaamijkeena gudahan hadii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo dheh sidoo kale like noo garee si uu dad saaxiibo badan u gaaro waayo saaxiibada badan ee haduu gaaro waxaan ku dhiiranaynaa inaynu soo duubno fiidiyo noocan oo kala aad iyo aad baan saaxiib mahadsantiin barnaamijka hadaan hoos ugu sii dhaadho magaalada koobaad hadaynu ku soo dhawaano waa magaalada Copenhagen ee caasimadda dalka Denmark magaaladani waa magaalada adduunka ugu amniga badan leh qiimeyn la sameeyay waxaana la ogaaday magaaladani in dhan walba ay ka dhisan tahay dhan walba dhan caafimaad dhan amni iyo dhan kasta ay tahay magaalada ugu amniga badan leh oo qofku ku noolaan karo talabaad hadii aynu ku soo dhawaano waa magaalada Toronto ama caasimadda waddanka Canada Toronto iyadna sidoo kale waa meesha labaad ee ugu amniga badan leh wadamada adduunka magaalada saddexaad waa magaalada Singapore ee caasimadda waddanka Singapore magaaladan Singapore waxay caan ku tahay dalxiisayaashu inay aad u tagaan meel aad iyo aad u jooga fiican inay tahay waana meesha saddexaad ee ugu amniga badan leh adduunkan aynu ku noolnahay Sydney waa caasimadda waddanka Australia caasimadani waa caasimadda afraad ee adduunka ugu amniga badan leh marka loo eego caasimadaha kale ee adduunyada aynu ku noolnahay caasimadda shanaad ee barnaamijkeena u dambaysa waa caasimadda Tokyo waa caasimadda waddanka Japan caasimadda waddanka Japan ee Tokyo waa caasimadda shanaad ee ugu amniga badan leh adduunyadan aynu ku noolnahay qiimeentuna kama turjumayso in dalka adduunyada oo dhan ay dadku soo wada mareen balse wadamada ugu amniga fiican leh daraasad laga sameeyay ayay soo gudbiyeen saaxiibayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin dad barnaamijka dhamaadkiisa soo gaadheen waxaan kaga tagayaa intaan ku kulmi doono mid kan la mid ah waxaan tagayaa sidaas iyo nabadgelyo